kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kulanka. barnaamijka maanta waxaan diiradda ku saari doonaa marxaladda kala guurka ee dalku ku jira iyo muddo kordhintii baarlamaanka ka dhacday. barnaamijkana waxaa marti ugu ah ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sidoo kale ahna madaxweynihii hore ee maamulka Puntland. mudana marka hore ku soo dhaw barnaamijka kulanka. waa dhawahay adeer waan salaamayaa waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak adiga iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ilaahay sanadkiisa nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo baraare iyo wadanka oo inoo wanaagsanaada insha Allah. aad baa mahadsantahay barnaamijkeena ayaan sii gudagalaynaa. bal marka hore ka waran sideed u aragtaa muddo kororsiga baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo shalay ku dhawaaqay? adeer waxa weeye muddo kororsigaas hadde waa wax aad u xun weeye, waa wax wadanka aan isleeyahay khatar hor leh iyo fidno hor leh ayay keenaysaa. waa sharci darro, waa nidaam darro, waxay naaqusinaysaa oo ay daciifinaysaa dimuqraasiyaddii yarayd ee dalka ka dhalatay ilaa waqtigii carta oo aad mooday inuu isbeddel joogta dalku mar walba gelayay, dadkuna soo baranayay dimuqraasiyadda iyo isdoorashada. waxaan ka hadlaynay waxay ahayd hal qof iyo hal cod miyaa la aadaa, doorasho dadban miyaa la aadaa, waxaas ummaddu ay ka hadlaysay meel dheer baa laga yimid. marka hadda in loo laabto inqilaab iyo ku darsi iyo waa wax runtii aslaya fidno hor leh oo dalka kusoo korortay wey. maxay tahay baahida keentay iyada oo gogashii doorashada ay fidsan tahay in baarlamaanku ay ku dhawaaqaan muddo kordhin 2 sano ah? adeer horta sideedaba qof walbaaba oo meel jooga xukunka waa uu jecel yahay inuu sii joogo. حتى ودمada anagu aan ka yani aan naqaano oo dimuqraasiyadda sheegta oo 8 sano xataa madaxweynaha loo ogol yahay iyo 2 teeram iyo ka badan iyo 10 sano ay joogaan qaarkoodna aysan balahaynba sida wadamada qaarkood oo sida Germany oo kale iyo qofku uu 15 sano joogo. qof walba xukunku waa uu jecel inuu sii joogo, laakiin da waxaan rabaa inaad ku joogto si wanaag ah oo ah rabitaanka dadka ah. marka waxa keenay waxa weeye waa xukun jacayl iyo in meesha la isku sii dhajiyo oo la sii joogo. baarlamaankaanuna dee markii horreysay ay ku darsadaan maaha oo waxaan xasuustaa 2012 bishii April 3 sano ay ku darsadeen yiraahdeen waan cusub baan ku darsanay, lagama faa'iidin oo yani ma aysan suurtagelin. tanna waxaan aaminsanahay inaysan suurtagelaynin sababtoo waxa weeye haddaan laga hortagin fidnadaas iyo musiibadaas hadda dalka loo horseedayo waxay keeni kartaa qaraarsiyaas siyaasadeed oo cusub, waxay keeni kartaa wadankii la soo kabkabayo la soo keenayo la soo dhaweynayay in la sii kala fogaado ayay keenaysaa, kalsooni darra abuurmaysa. waxaanay khatar u nahay in dalku uu galaba nidaam cusub iyo dagaal cusub iyo shiddo cusub. ilaahay naga najeeye bil Ramadaan baan ku jirnaa, ilaahay ma baryeynaa. ma is leedahay muddo kordhintan 2 sano waa ay dhaqan geli kartaa? aniga ilama aha say ku dhaqan galaysaa haddii qofku iska sii joogi karo oo qof walbaaba intuu doono joogi karo dalka. de maxaaba de loola dagaalamayay dictatoriyadii 21 sano dalka haysatay oo burburka sababtay oo wadankii ku burburay oo laakiin iyo marka hadda aan arko dadka Soomaalida ah waxaad moodaa waxa abuurmay waxa afka qalaad lagu yiraahdo cancer culture oo ah ama se dabeecadda culture-ka kankarada ah oo ah in aanu buunbuunino waxa khaldan in waxyaabaha hadda مثلا 4 sano u dambeysay lagu soo kordhay weeye in dadka la caayo, in la qurmiyo body politic wax la yiraahdo oo yani nidaamka dawliga siyaasiga la qurmiyo oo dadka yani culture-ka xataa laga xumeeyo. arkayso bulshadii Soomaaliyeed meel kasta ay joogeenba oo islaamihii oo YouTube tagan oo caytamaya maxaa la yiraahdaa dadka la corrupt gareeyo, lacag inta lagu corrupt gareeyo la yiraahdo caaya mataqaana bulshada dadka ka caay. waxaas oo dhan waxa weeye waxay ka hor imaanaysaa dimuqraasiyadda, waxay qurminaysaa nidaamka dawliga ee qurminaysaa. marka de waxay soo kordhinaysaa ma jirto, waxa weeye dib hor leh oo dalka kusoo korortay weeye. marka dadka ayaa la rabaa Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay arrintan ka hortagaan, inay yiraahdaan mada dictatoriyad iyo kursi lagu sii fadhiya iyo xukun la isku dhajiyay waxay keentay burbur. waa ka soo kabanaynay wali kama aanan bixin tiiheeda waa wali nahaya
inaanu marka haddana mid kale la ogolaado inta ay xoogga yar tahay in laga hortagay ku fiican tahay hadhowto maalin laga qaban karinin in la qalqeyliyo lama rabo marka aan waxaan isleeyahay tareenkani meesha hadda uu taagan yahay in lagu joojiyaa hadduu hore u dhaqaaqo dhib unbaa sii kordhaysa waa mahadsan tahay mudane waxaa tahay siyaasi kusoo garaadsaday siyaasadda soomaaliya horeyna ra-iisul wasaare ayaad uga soo noqotay xaggee ayaad isleedahay soomaaliya waa ay u socotaa wallahi soomaaliya anigu mar walba rajo fiican baan ka qabaa soomaaliya rajo fiican baa socotay meeshii aan ka nimid meeshii aan joogno 91dii iscayrsigii dagaalkii warlordismkii dhibtii maxkamado qaylo waxaasoo dhan waa laga soo gudbay isbedel baa socday dhacay 2000 waxa yani dawlad baa lagu soo dhisay carta mid kale imbigaat lagu soo dhisay mid aanu ra'iisul wasaaraha ka ahayo Sheekh Shariif madaxweynaha ka ahaa ayaan doorasho ku qabanay dalka gudihiisa 2012 16 sidoo kale qoriisu dhibkaas lagu jiray dadku way soo fahmayeen dimuqraasiyadda waa la soo baranayay aniga rajadaydu marna ma aysan xumeyn haddana waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inta badan oo wanaag rabta ayaa badan marka inta u hamuun qabta dictatoriyad ama waysan aqoonin dictatoriyadu waxa ay dhasho iyo waxay ku dambeysay ayaysan aqoonin oo waxaan maranayaa dad yar yar weeye oo kuwa mataqaana baraha bulshada ka caytama oo badan ama waa dad u hiloobay u ciil qaba mataqaana madaxka garaaci iyo xabsigii iyo shidadii iyo xuriyad la'aanta dalka ka jiri jirtay dad u hamuun qaba weeyaan isleeyahay laakiin intaasina waa in yar laakiin majority dadka Soomaalidu way yaqaanaan sooyaalkii taariikheeda la soo maray way la socdeen way garanayaan intaas ayaana wanaaga inta rabtana weeye de mar walba waxaan isleeyahay anigu xumaantii wanaagu markii ay tartamaan wanaaga ayaa mar walba badiya xumaantu waxa laga yaabaa waqtiga yar inay guulaysato laakiin waqtiga dheer waxaan isleeyahay waxa ku leh wanaaga iyo niyad samida iyo Soomaalinimada iyo xurriyadda iyo dadka oo yani wadanka u raba wanaaga iyo horumarka baa badan baa isleeyahay waa hagaag toobiyaha Soomaaliya qaaday ku dhisan muddo kororsiga muxuu horseedi karaa horseedi karaa qalalaase wuxuu horseedi karaa fidno wuxuu horseedi karaa dagaal sokeeye wuxuu horseedi karaa Soomaalidii awalba kala jabnayd oo qaarkood ba hadda ay yiraahdeen dawladda gaar ah nahay in la sii kala jajabo oo koorlo ay sii tagaan ay yiraahdaan meesha wax wanaag ku soo socdaahay ma jiraan hadday hadda wadadaas ay qaaday wada kale u leexdaan baa dhici karta waa suurtagal ah yani gobolada qaarkood marka waxaas oo dhan waa fidno waxa loo baahan yahay marka wax garadka Soomaalida cuqaasha Soomaalida siyaasiyiinta Soomaalida culimada Soomaalida oo eedeynaya runtii sababtu waxa weeye culimadu kama marka qaarkood hadday doorkooda qaadan lahaayeen waxaan isleeyahay wadanka isbedel baa waa loo dhugul yahay waa la dhageystaa dadku moogtahay culimada mataqaana ixtiraam badan bay u hayaan warkooda waa dhageystaan laakiin mar walbaaba culimadu waxa weeye they came short waxa weeye ma yani positionkoodii ku habboonaa marna ma yimaadaan kama hadlaan ama ha noqoto la dagaalan shabaab ama ha noqoto fidno abuurmaysa oo laga hortago ama fidnooyinka hore dalka uga soo dhacay ama noqdeen dagaalkii civil warkii ama kii kasii horeeyay ahaa fidnadii siyaad barre iyo dictatoriyadii waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay culimadu inay doorkooda qaataan maanta fidnada dalka loo horseedayo inay ka hadlaan baa rabaa qaarkood waa ku hadleen waa ku mahadsan yihiin waan arkay Sheekh Umar oo ka hadlaya arrintan ayaan hore laakiin waxa loo baahan yahay si mug leh arrintan in looga hortago dadweynuhu ay ka hortagaan shacabku ka hortago la tashi guud hadda la isugu yimaado siyaasiyiinta musharaxiinta hadda tartamaysay dowlad goboleedyada inta hadda ka soo horjeeda waan u jeeda hadda ku isagu madaxweynaha hadda jiraahay uu magacaabay oo la dhoodhoobay inay waxaan maaragtay aan soconayn ay taageereen baa inay ii muuqatay waxaan moodaa inay yani taariikhdooda siyaasadeed ay ku jaangoynayaan systemka hadda jira waxa iyagu fiicanna maaha wax dadkooda qabtana maaha ma fahamtay laakiin waxaa loo baahan yahay inta wax garanaysa oo dhibta soo socota fahmaysahay inay inta usu timaado go'aan gaartaa la rabaa shacabka ayaa mar walba ka xoog badan inta yar ee fidnada raadinaysa waa hagaag waxaa tahay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland sideed u aragtaa doorka siyaasadeed ee Puntland ee xilligan Soomaaliya ay ku jirto والله Puntland mar walba doorkeeda way qaadanaysay ama ha noqoto yagleelidii dowladnimada Soomaaliyeed hadda jirta waa la socotaan madaxweynihii hore ee Puntland ayuu Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariiste
ninkii xamar yimid dowladnimada keenay oo villa Soomaaliya fariistay oo ciidan badan iyo hub badan iyo dhaqaale badan ba ku bixiyay markaas ayuu hadda door mug leh ayuu hadda ka qaadanaya qaabka hadda ay wax u socdaan oo waxaan maleynayaa cidda kaliya hadda dictatoriyada hortaagan waa isaga iyo dhowr qof oo kale oo mataqaanaa siyaasiyiinta hadlaysa oo dee mataqaanaa muuqato door kale iyagu hadda dee in badan anaga ka mid ahiin banaankan joognaa hadda door weyn oo xoog leh oon ku lehna dalka ma jiro laakiin Puntland doorkeeda inay qaadataa la rabaa go'aamo adagna ay ka soo saaraan baa la rabaa arrinta iyada ay shiraan mataqaanaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladuba doorkoodana ay muujiyaan horena waa u diideen dictatoriyad dadka reer Puntland haddana inay diidaan baa la rabaa midaan yarta ah oo waxa la yiraahdo timber dictatorship waxa weeye waa dictatoriyad taf yar weeye midaan mid weyn maaha marka in laga hortago ayaa loo baahan yahay si xoog looga hortago gudoomiyihii baarlamaanka Puntland xilli hore waxaa si maxaa la dhihi jiray sharciga aan waafaqsanayn loo saaray 8 xildhibaan oo ka dambeysana madaxweynaha hadda talada haya maamulka Puntland waxa uu ka qaaday xasaanada sideed u aragtaa in maamulkii ka dambeeyay dimuqraadiyaddii aad dhistay ee Puntland uu sidaa u galo anigu runtii anigu waxaan mar walba jeclaa in institutionka Puntland dhexdiisa wixii ka khaldan dhexdiisa lagu saxo oo aan ama xoog la adeegsan ama aan la adeegsanin waxa la yiraahdo waxa la yiraahdaa wax qeyr dastuur oo dastuur ka hor imaanaya marka anigu mar walba waxaan la jiraa dastuurka in lagu dhaqmo dastuurka in la raaco wixii khaldanna dastuurka lagu saxo ayaan aaminsanahay wixii ka khaldanna marka kulay haday jiraan madaxweynaha hadda jooga Cabdullaahi Dani si anu si public hadda uu sheegay ma wixii khaldan si private oo waxa la qofka moogta maslaxadda markaad qofka u sheegayso waxa fiican si adarto inuu qaato dikla waxay noqonaysaa critique bay noqonaysaa in yani loogu sheego sida saxda ah oo dariiqa saxda loo mariyaa wanaagsan madaxweynaha adiga xilka kaaga dambeeyay Saciid Cabdullaahi Dani shacabka reer Puntland waxay ku dhaliilaan inuu yahay nin keligii taliye ah ma kuula muuqdo adiga ma isleedahay Saciid Dani waa keligii taliye mada aniga ilama muuqato Saciidina waxaan arkaynaa inuu dictator yahay marka 4 sano inta ka dhamaa 5 sano ay dhamaato uu yiraahdo isna 5 sano kala ku darsaday ama 2 sano ku darsaday markaas aanu oranaynaa waa dictator aan ogolayn dimuqraasiyad waxaan aaminsanahay dabcan fiiri marka qaarkood waxa imaanaysa go'aamo adag inaad qaadato oo dadka qaarkood marka qaarkood ay u arki karaan inay ay adag yihiin laakiin xukunka dawligaaba ahba marka qaarkood inaad go'aamo adag oo dadku marka ay u arkayaan inay adag yihiin inaad qaadato marka waan jeclaan lahaa in dawladda ka jirta Puntland mar walba dadka in loo dhimriyo in dimuqraasiyadda la ilaaliyo in dastuurka la ilaaliyo in lagu dhaqmo dastuurka in dadka la baro dimuqraasiyadda aan laga hor istaagin shacabku inay cabiraan fikirkooda intaas oo dhan baan ugu taageersan runtii Cabdullaahi haddii aynu soo laabano dhanka iyo federaalka beesha caalamka hore waxay uga digtay muddo kororsiga baarlamaanka Soomaaliya oo qorsheynayay in muddo uu ku dhawaaqay shalay maxaa ka dhalan kara go'aamo noocyo ayaa la dhihi karaa way qaadan kartaa beesha caalamka horta hal aan ogaano oo beesha caalamku Soomaaliya mar walbaaba geedi socodkeedii nabadeed iyo taariikheed iyo isbedelkii siyaasiga ah mar walba dhalanayay waa ay la socdeen waa ay qayb ka ahaayeen haddana qayb ka yihiin Soomaaliya waligeed kama bixin chapter 7kii UN-ka wali ku jirna wadanku dabcan wadan sovereign oo madax bannaan oo calan leh oo dawlad la weeye laakiin haddana kuma filla wadan amnigiisa ku filan maaha dad amniga ku filayna dabcan waxa khatar baa imaan karta in amni xumadaadu ay ku keento dalal kale iyo caalamka intiisa kalaba marka in la ilaaliyo mar walba wadankan oo la korjeegteeyo waa muhiim inta dawladdu ay noqonayso cageeda ku istaagayso ay dalka la xoreynayo wadanku noqonayo wadan isagu dawladdu ay meel walba ay xukunto dawladda joogta xamar xataa in badan oo kamid ah xukumin baa laga yaabaa marka beesha caalamku door bay leedahay doorkeedana way qaadan doontaa sida aniga ila tahay waxaa laga yaabaa dadka Soomaalidu time frame ka waqti ay ku shaqeeyaan iyo waqtiga ajnabiga ku shaqeeyo isma laha marka waxaa laga yaabaa inay ayagu ay tartiib ma garatay ay
u siinayaan waano iyo tusaaleyn haddii marka laga caali waayo markaa go'aamada ay qaadanayaan maamaha ingiriisa waxay tiraahdaa why will you use poison when you can kill with honey haddii aad yani malab wax ku dili karto maxaad sun isticmaalaysaa marka ayagu badanaaba dilkooda iyo dhibtoodu waxay ku timaadaa malabsiina kuma timaado sun marka waxaa laga yaabaa marka inay la sugayaan waqtiga yani ay tahay inay dhulka ku dhuftaan wana ku dhufan doonaan haddii waddanku qalaalsuu sii kordho dhibtuna sii kororto la arkana waddankana inuu kala tegayo dhibna imaanayso adduunkuna khatar ku yahay marka tallaabo noocay qaadi karaan markaas ma ku meel gaar in lagu celiyay noqonaysaa mise in weli Soomaalida la isugu yeero teendadii xalana marka looga yeeray noqonaysaa de haddaba teendada la isaga yeerayo waana la joogay teendada miyaa maqray teendada weli way taaganta meeshada way weli taallaa laakiin waxaan aaminsanahay in laga baaqsan karay waxaan aaminsanahay in la heshiin karay waxaan aaminsanahay in madaxdu dalka ka jirtahay hadday caqligooda isticmaalaan inaan ajnabi loo baahan runta waana ceeb wallahi wax laga yaqadsado weeye in la yidhaahdo gaalay kaale noo garnaqa oo mar walba nagu dhex jira oo annaga noo kala dabqaada annaga Soomaalida aan isfahmi laanahay waa dhib jirta weeye laakiin waxaan rajeynayaa insha allahu in laga baaqsado dhib badan inta hadda go'aamadan khaldan oo masiiriga qaadatayna waxaan rajeynayaa in caqligu kusoo dego oo ay dib isula laabtaan ay ogaadaan go'aamadoodu inaysan ama dhibta ay geystaan inaysan iyaga ku koobnaanaynin dalka dhan ay saameynayso dhib badan dalka u keenaysa marka in laga baaqsado arrinta iyada ah miiska halka lagu laabto doorasho la aado si degdeg ah la isu dabco la isu tanaasulo tanaasulku dhan kale ka imaan maye laba dhinac inuu ka yimaadaa la rabaa dabcu hal dhinac ka imaan maye laba dhinac inuu ka yimaadaa la rabaa waxaa loo baahan yahay marka waayeel waa annagoon isyeelyeelin baa la yidhi in aanu inta miiska la fariisto waxaa la isku hayaa wax badan maa sida noo sheegaye inta la xaliyo doorasho la aado laakiin ku darsi iyo haddii 2 sano dhammaata maxaa diidaya haddana 2 sano kale lagu darsado oo 2 sano dambe lagu sii darsado marka waxaas wax sax maaha dariiq sax oo la aadayna maaha tarbuna keenaya laga joogsana laga leexdaan leeyahay okay haddii ay hirgasho muddo kordhintan 2 sano madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixo Puntland iyo Jubbaland ay dawladda ma aqoonsanin dhahan Puntland ma aqbalayso Jubbaland ma aqbalayso Soomaali badanna ma aqbalayso dadka Muqdisho laftigooda ma aqbalayaan xataa kuwan yiri hadda madaxweynayaasha saddexda ah oo yiri waa taageerna go'aankaasi dadkooda in Israa'iil ka baan ognahay waa aysan rabin arrinta iyada ahi yani predominant majority-gooda in Israa'iil ka baan ognahay wadaasna wada sax aysan ahayn dadku dimuqraasiyad bay rabaan dadku horumar bay rabaan dadku waxay rabaan wadanka iyo tii hay dhibta haysata in laga gudbaa rabaa laakiin hadda yani dagaal horle iyo shiddo horle iyo isqabsi siyaasadeed horle iyo mataqaana midda ku taag horle waxay la tahay wax loo baahna runtii ma aysan ahayn waxayna runtii xumeynaysaa legacy-ga madaxweynaha hadda jira Cabdullaahi Farmaajo ayay dib weyn u geysanaysaa runtii arrintan iyada ahi wax isaga u wanaagsanna ma ahayn wax la egna ma ahayn wax ku habboonaana ma ahayn inuu sameeyo anuu saan isleeyahay weeye cidda kula talisayna kulle tala fiican ma aysan siinin waanse ka xumahay baarlamaanka oo la rabay hay-addii ay ahayd in ay korjoogtayso dalka hay-addii dadka shacabka materaysay hay-addii la rabay wixii khaladoo ka yimaada oo dastuuri oo ka yimaada dhanka maxaa la yidhahdaa fulinta ama executive branch of the government ayaa waxaa la rabay inay ayadii hadda ay noqotay waxaa la yidhaahdo balag ka lolata dowladdii laftigeeda hadda dowladda yani sharci darrada samaynaysa extensionka samaynaysa balag ka lolata inay noqotay waa wax aad looga xumaado wey waana ka xunnahay marka ilaahay malamaadamaan ku jirnaaye fidlada hanaga leexiyo wadankana khayr iyo barwaaqo ayaan u rajeynaya insha allah gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay waxaad tahay ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda Soomaaliya waxaad Soomaaliya soo hogaamisay xilli kala guura qaab noocee ayaad kula talin lahayd in kala guurkan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarihiisa cusub ay u maareeyaan walaal horta haddii wax in la qabto waa la qaban karaa anagu dowladdaydii badbaado qaran waxaan haysanaa 1 sano ayaa dalka inta hadda jirta lagu xoreeyey baydhabo markaan joognaa la xoreeyey jowhar markaan joognaa la xoreeyey balcad markaan joognaa la xoreeyey kismaayo markaan joognaa la xoreeyey waxaan ka hadlaya beledweyne sidoo kale waataan socdaalka ku tegay dastuurka hadda jiro oo maanta 8 sano qabyada ahi markaasaanu 5 bilood February laga bilaabo ilaa August ayaanu ku dhamaystiray haddii marka shaqooyin mucayyana waqti mucayyana road map la sameeyo
wax badan ayaa laga baaqsan karay dastuurka la dhammaystiri karay waddankaas si wanaagsan loo xoreyn karay xoogan loo isticmaalayay ciidamadan Haramcad iyo Shabeel iyo Dhurwa lagu hayo oo dadka lagu cabsiinayo yani shabaabka jooga Afgooye iyo kuwa jooga Balcad oo jidka aan la mari karin waa la dhisayay wadadii qadar ku deeqday oo Jowhar aadaysay waxa loo dhisayay shabaab daraadiis tanna in badan bay dib ay ka geysteen cadowgan marka Afgooye jooga iyo ceelasha biyaha iyo xamar gudaheeda ciidanka ma lagu xoreeyo dalka inta loo isticmaalayo dimuqraasiyadii in lagu waxyeeleeyo lagu kufsado inta loo isticmaalayo ma loo isticmaalo waddanka lagu xoreeyo marka wax badan bay qaban kareen haddii ay ilaahayna tala saartaan dadaal la yimaadaan qorshe siyaasadeed oo ay fulinayaanna ay samaystaan roadmap ay ku shaqeeyaan ay samaystaan waa samayn kareen anigu intaas ku tarin lahaa laakiin looma jeedo dhankaas aan u marinaya aad baa u mahadsan tahay dad badan oo madaxweyne farmaajo dhaliila waxay ku dhaliilaan inuu yahay nin keligii taliye ah ma is leedahay adiga Cabdiweli gaas ahaan farmaajo waa keligii taliye wallahi anuu farmaajo kii anuu aqaanay oo shakhsiyadda aan aqaanay iyo shakhsiyadda hadda muuqata iyo go'aamada la qaadanayo walla waxa aad u kala duwan runtii ama waxba iga dambeeyay isaga ama waa laga dhaxlayaa cid kale iyo ajenda kale isagoo uusan shaqo ku lahayn ayaa la marsanayaa sida aniga ii muuqata laakiin anigu dhaqan ah dictatornimo iyo xumaan iyo qalbi xumo iyo cadaadis qaab noocaas shakhsiyad ku sifoobi karta anigu kuma aqoonin laakiin hadda sida muuqata waxaan isleeyahay ama aanan aqoonin oo qof khaldan baan aqaanay ama waxaan isleeyahay cid kale ayaa ka dhaxlayso oo ku shaqeynaysa isleeyahay labada sifana midna ma wanaagsan runtii ugu dambeyntii maxaa fariin aad u diri lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa kow waxaan u dirayaa waxa weeye ilaahay bisha Ramadaan ha nagu gudbiyo dhib la'aan waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak dhammaantood meel kasta ay joogaan midda labaad waxaan leeyahay dadku xumaantu waxaa la yiraahdaa xun dhibta iyo xumaanta hadday ay yar tahayna waa la baabi'iyaa hadday badan tahayna waa la yareeyaa waxaan isleeyahay go'aamada hadda la qaatay baarlamaanku qaatay waa dhib yar oo soo korortay meesha hadda ay joogto inaan ku jirnaan rabaa ka hor nimaadno meel kasta oo la joogo in laga hor yimaado oo lagu joojiyaa la rabaa baarlamaan ku darsanaya isagu oranaya anna waa ku darsanay dowladina waa ugu darnay wax sax ah maaha waa in laga dhiidhiyaa laga hor yimaadaa lana diidaa waa in aan baranaa dadkeenu ay yiraahdaan yani wixii aan ugu habboonayn inaan diidi karno waa inaan tusnaa laakiin tan haddii hadda gudubto ayna marto haddee in badan oo kalena waana la marsanaya insha allahu laakiin waxaan isleeyahay waa in laga hortagaa aniga taladaydu taa weeye inta dhibtu yar tahay dictatoriyadu intaysan xoogaysan in laga hor yimaado wey aad baa u mahadsan tahay adaan mudan adeer intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii kulanka barnaamijkana waxaa marti igu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan idinla socodsiin anigoo Cali Xildon tan intaan barnaamijkan mid lamid dib u kulmi doono sida ay nabadgelyo